Bismillah, assalaamu calaykum. Muuqaalkan waxaan doonaynaa inaan ku soo bandhigno mowduuc aad loo hadalhayo ayaamahan dambe isla markaana cilmi baarisyada la xiriira mowduucan ay aad u badan yihiin sidoo kalena wax soo saarkiisa uu aad u badan yahay. Mowduucan isaga ah waa artificial intelligence amaba garaadka la sameeyay caqliga macmalka ah. Mowduucan waa mowduuc aad u ballaaran runtii isla markaana dhinac kasta ama majaal kasta oo nolosha ah galay waayadan dambe. Marka soo dhawaada mar kale oo walaalkiin Cabdulle Khaliif waxaan ku bilaabaynaa taariikh ahaan mowduucan asaga ee artificial intelligence-ga runtii aad ayuu u horeeyay. Meesha ugu horeysay ee lagu soo bandhigay ama lagu soo hadal qaadayna waxa uu ahaa garaadka macmalka ee la sameeyay 1950 shir la qabtay. Shirkaas asaga ah saynis yahanadii ka qayb galay mid ka mid ah ayaa waxa uu soo bandhigay fikrad oranayso wax walba oo la barto ama wax kasta oo caqli la xiriiro waxaa la samayn karaa in aalad ama mashiin lagu qaabeeyo ama la baro. Sida in la isku dayo in aaladdu adeegsato luqad, wax soo saarto, abuurto fikrado, xalliso dhibaatooyin ay dadka kaliya hadda xallin karaan, sidoo kalena aaladdaas is-hormarisa iyada oo cilad bixin isku samayso. Hadalka ninkan micnihiisu waxa uu noqonayaa ama wuxuu isugu soo biyashubanayaa in aaladaha ay bedelaan hawsha oo bini'aadamka qabto. Hawl kasta oo bini'aadam uu qabto ma bedeli karaan, laakiin hawl kasta oo soo noqnoqoto waxaynu awoodnaa inaynu u samayno aalad samayso hawshaas ayada ah. Inaan sidii bini'aadamka uu hawshaas ayada u qabanaya intaan u programino aan sidaas sayta aaladii hawsha ayada ahayd ugu dirsano. Barnaamijkaas asaga ah ee 1950 la soo bandhigay haddeertan ayaa la dhihi karaa way ka suura galeen afkaartii waagaa sayta ay dadka ayaga ah soo bandhigeen. Maantadan la joogana dhinac kasta oo nolosha ka mid ah artificial intelligence ama AI ama garaadka macmalka ah waad ku arkaysaa. Haddii ahaan lahayd caafimaadka, haddii ahaan lahayd hoteelada iyo maqaayadaha oo waitress-ka lagu bedelayo robotyo hawsha waitress-ka fulin karo, haddii ahaan lahayd mashiinada yararka ee aragtay wadooyinka yaala ama meelaha guud sida maktabadaha iyo waliba meelaha tareenada laga raaco aad ku arkayso mashiino shaah ku sameynaya ama kafee ku sameynaya. Haddii ahaan lahayd finance-ga iyo majaalaadka kale ee nolosha ee business-ka la xiriiro kulligood intaas oo dhan AI ayaad arkaysaa in la adeegsanayo. Aan ka soo qaadna hadda mobilka iyo computerka ma aqaana inaad wada taqaanaan, laakiin dad badan waxa ay og yihiin in mobilka uu wax badan oo hawlo ah ku fulin karo la hadal kaliya. Tusaale kale Android-ka oo uu leeyahay Google-ka waxa jiro barnaamij la yiraahdo Google Assistant oo kaliya aad leedahay hey Google kadibna waxa aad rabtay u dirsanayso sidaasna uu kugu soo jawaabay adoonba mobilka gacantaada ku qabanin ama aanan furin. Sidoo kalena waa la mid Apple-ka ama iOS-ka hey Siri ay dad badan ayagoo dhahay aad arkaysaa oo aad isleedahay qofkan ma asaga ayaa isla hadlay. Sababta uu AI-ga ama garaadka macmalka uu haddeertan u howlgalay waxa weeyaan in waagaa horeeto ay yareed xogta la hayo amaba daatooyinka la hayo ee aaladaha lagu programin jiray. Laakiin maantadan la joogo balaayiin data ah amaba trillions ayaa la dhihi karaa oo data ah ayaa maalin kasta amaba sanad kasta lagu soo bandhigaa online-ka baraha bulshada haday ahaan lahayd iyo haday ahaan lahayd website-yada kale. Sidaasna waxaa la helay data aad u tiro badan, taas ayaana fududeysay in aalado badan la programiyo hawlihii ay dadka qaban jireenna looga maarmo aaladaha ayaga ah. Haddii aan si cilmiyeysan u qeexno caqliga ama garaadka macmalka ah waxaa la dhihi karaa waa sida aaladaha ama mashiinada loo baro siduu caqliga bini'aadamka u shaqeeyo, sida application-nada gaarka ah ee loo yaqaano expert systems ama waxay dhahaan NLP oo aan dib ka sharxi doono iyo sidoo kale speech recognition iyo machine learning. Marka sida aaladda loo barayo caqliga bini'aadamka qaabka u shaqeeyo sida loogu barayo waxa weeyaan in aynu sameyno hawl uu bini'aadamka qabto taas oo aanan u baahnayn fikir badan iyo taxliil badan. Qofka bini'aadamka ah hawshii uusan u baahnayn inuu fikiro ee si la waaci ah u sameyn karo. Waxaan sameyn karnaa inaan hawsha ayada steps u qaybino isla markaana aan code u qorno sidaasna aan aaladii markaasita aan la tacaamulaynay aan ku shubno. Taa micnaheedu waxa weeyaan si aad stepska hawshaas ayada ah ugu samayso oo steps isku xigaan oo la jeeda aad ugu kala qaybiso waxaad u baahan tahay data aad u tiro badan. Datadan ayada ah online-ka ayay maanta ka buuxda ayaa la leeyahay oo datada adduunka taalo maanta ee la heli karo waa 44 trillion GB. يعني وأفرتني أفر أو الراعي لبقية 10 إبر وقياسي كرتا دررك أم حجم داتا أما ترى بنانتا داتا أيضا أي leedahay
markii aaladda la programinayo waa in loo programmiyo sidoo bini aadamka wax u qabto ama wax u garto sidaan hore u sheegnay 3 talaabo ayayna martaa ayaa la leeyahay hawsha ayada ee programinta ah talaabada koowaad waxa weeyaan learning process habka barashada talaabadan ayada ah waxa ay xoog saartaa ama learning process waxa uu xoog saaraa sidii daatadii ama xogtii la soo arooriyay loogu bedeli lahaa amaro la fulin karo oo ay aaladda fulin karto waxaana waxa lagu magacaabaa algorithms ama al-khawarizmiyat ay carabiga dhahan kadibna waxa ku xigta talaabada labaad oo ah reasoning process ama sababaynti oo iyadana ah sidii algorithmskaas ayaga ah looga dooran lahaa algorithmska ugu fiican ee aaladda hawsha ku fulin karto talaabada saddexaadna waxa ay noqonaysaa saxid ama self correction process waxa ay dhahan oo ah in algorithmska ayaga ah aynu ku dadaalno sidii ay u noqon lahayd mid hawshii looga baahnaa aaladda u fuliso isla markaana aysan ku imaanin wax cilad ah hadda aanu imaano qaybaha uu kala baxo artificial intelligence qaybo badan ayuu u kala baxaa ama AI si aan marka mid ugu soo qaadano waxaan sameynaynaa maadaama aan niri sida bini aadamka uu u shaqeeyo aalada u shaqeyn karaan rabna inaan sameyno bini aadamka qaabka uu u shaqeeyo bal aynu isla fiirino kow aadanaha ama bini aadamka hadal ayuu ku xiriiraa sidoo kalena wuu isdhageystaa sidaa daraadeed qaybta artificial intelligence ee la xiriirta hadalka iyo dhageysiga waxa la yiraahdaa speech recognition waa sida Cortana Siri iyo Google Assistant oo aad mobilkaaga iyo waliba computerka aad ka arki karto oo aad kula khitaabi karto ama aad kula xiriiri karto adigoo kaliya hey Google dhahaaya ama hey Cortana ama hey Siri sidaan hore u sheegay kadibna waxaad rabtaa u diin karto speech recognition ayaa la yiraahdaa taas markii nooca labaad waxa weeyaan aadanaha sidoo kale qoraal iyo akhris ayuu ku xiriiraa sidaas oo kale waxaan u baahanahay aalado arinta ayada ah sameyn karo oo qoraal iyo akhris isku xiriiri karo qaybtan waxa la yiraahdaa NLP natural language processing labada nooc ee speech recognition ka iyo waliba NLP ga waxa ay hoos tagaan amaba ay la xiriiraan statistical learning waxay dhahaan ay hoos tagaan oo ayadana si hoos tagayso machine learning oo ah faraca weyn ee koobaad ee artificial intelligence nooca saddexaad waxa weeyaan aadanaha sidoo kale dhaqdhaqaaq ayuu sameeyaa bay'adiisa ayuuna la falgalaa nooca AI-ga ee arrintan la xiriirana waxa la yiraahdaa robotics ayaa la yiraahdaa oo waa robotyada iyo aaladaha kala duwan ee aan sheegayna ee maqaayadaha oo kale kuwa ka shaqeynaya ama mashiinada waxyaabaha hawlaha fudfudud sida shaaha iyo kafeega ku sameyn karo oo kale iyo kuwa ka sii adag oo amaliyad jiraaxiya xataa amaba qaliino caafimaadka la xiriira kuwa sameyn karo ayaa jira aadanaha sidoo kale wax walba oo uu arko uu kala qaybiyaa wixii isku mid ah isku sib uu arkaa wixii kala duwanna waxa uu arkaa sidoo kale wax kala duwan qaybta ayada sidoo kale AI-ga la xiriirtana waxa la yiraahdaa pattern recognition aaladaha waxa ay bani aadamka uga wanaagsan yihiin arrintan ayada ah pattern recognition sida daraadeed waxa jirto farac weyn oo kamid ah artificial intelligence ama garaadka macmalka oo la yiraahdo machine learning qayb ayadana waxa jirto la xiriirto maskaxda bini aadamka oo artificial intelligence-ga waxa la isku dayaa in aalada la sameeyo u shaqeyn karo sida maskaxda bini aadamka sidaan hore muuqaalkii xusuusta aan uga hadlayay aan ku sheegay waxa ay ka kooban tahay neurons waxay dhahaan oo isku xiran sida wayr isku xiran ah fiilooyinkaas ama wayrada ayaga isku xiran isku tagtagay ee macluumaadka maskaxda bini aadamka ku kaydiyo sidoo kale waxa ay leeyihiin waxaan ku bedeli karnaa inaynu isku xirnaa annagana neurono electronic ka samaysan inaan isku xirxirno oo wax u dhow maskaxda bini aadamka mashiino shaq leh inaynu sameyno sidoo kale ayaa jiro oo qaybtana waxa la yiraahdaa artificial intelligence ka tirsan deep learning waxa ay hoos tagtaa machine learning hore aan u sheegay haddii aan marka si guud waxyaabahaas aan sheegnay oo dhan aan laba nooc bas u kala qaadno AI-ga ama garaadka macmalka waxa la sheegaa inuu laba nooc yahay nooca koowaad waa machine learning oo u baahan data aad u tiro badan maadaama data la adeegsanayo markii mashiinada wax la barayo iyo symbolic learning oo ah image processing cilmigan ay dhahaan la xiriiro marka labada nooc oo waaweyn oo noocyada hore ay si hoos tagaan ayaa loo qaybiyaa machine learning-ka noocyadiisa kala duwan intaas ayaa aan ka xusi karnaa wala uu leeyahay noocyo kale aad u tiro badan oo aanan halkan ku soo koobi karin haddii aan wax yar ka tilmaano waxa loogu baahan yahay faa'iidada artificial intelligence ama AI-ga waxaynu dhihi karnaa artificial intelligence
waxyaabo badan ayuu bini'aadamka u fududeeyaa nolosha ayuuna fududeynayaa tusaale ahaan oo kale haddii aad rabto inaad taxi qaadato maantay taxi aad rabto inuu gurigaaga kugu imaado kee kuu fudud inaad Uber ka dalbato ama dhaweeye aad adeegsato oo gurigaaga uu kugu imaado mobilkaaga intaad dhowr martaa taabato iyo inaad wacdo qof xafiis joogo ama qof taksiila ah oo sidaas uu magaalada meesha ugu dambeys kaaga imaado halka Uber ama dhaweeye ay kaliya kan kugu dhow oo ku soo qabanaya sidaasna uu kugu keenayo waxa soo dhan waa algorithms iyo AI iyo machine learning ayay adeegsadaan applicationska noocaas oo dhan حتى يوتيوب كان هذا مقالة أتكدعوته مقالة بدن أو أدرك يسودن هراي وأركن سببته يقول كان وحويان إنه مقالة سدا يسوليهين أما بقى يسوليهين أما عوانه يسوليه وكور راذينه ونكو كان يكون صبندقيه ما دام مقال وياك أدعوته مقال خلا أيوكو كان يسود خلا هل كواي هراي يوتيوب وكلي وشقين جرى قابعة إن subscriptions كأما بدك subscribe كوه كليه أي داون كران مقالة هذا لكن ما أنت وأكتب algorithms AI أيو استعماله سداسنا waxa uu fiiriyaa muuqaalada lagu daawasho badan yahay iyo sida muuqaalada isugu dhadhow yihiin ama ciwaanadooda isu leeyihiin ama isku luqad u yihiin sidoo kale faa'iidooyinka artificial intelligence-ga waxa kamid ah hawlaha tafaashiisa tirada badan ee u baahan in uu si fudud ku qabto artificial intelligence-ga aaladaha ku shaqeeyo halka dhinaca kale bini'aadamka ay waqti aad u tiro badan ku qaadanayso ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan muuqaalkan ku soo gabagabeeyo luqadaha programming ee loo adeegsado AI-ga ama artificial intelligence-ga luqado badan ayaa jira runtii oo loo adeegsado laakiin waxaan ka xuseynaa kuwa ugu muhiimsan sida Python oo kaleeto waxa kaleeto jira Java ayaa la adeegsadaa sidoo kalena C luqadan la yiraahdo ee programming ayaa la adeegsadaa iyo kuwa kale aad u tiro badan runtii oo aan halkan ku soo koobi karin muuqaalkan intaasan ku soo koobaya tan iyo muuqaal kale salaam calaykum